waxaan doonayaa fariin kooban oo ku wajahan guud ahaan shacabka degan jamhuuriyadda Somaliland gobol kaste gaar ahaan gobolka Maroodijeex inaan bartan kula wadaago waxaan ka warqabnaa waxaanu gelaynaa doorasho isku sidkan oo baarlamaan iyo golayaal deegaana doorashadaas waxay leedahay caqabado iyo culaysyo badan cid kaste waxa mas'uuliyadda ay ka saaran tahay ama muwaadin kasta waxa mas'uuliyadda ka saaran tahay kow ilaalinta amniga inaanu ku haleyn ciidamada qalabka sida qaybihiisa kala duwan laakiin muwaadiniintu ay wada noqdaan ciidan ilaaliya nabadgelyada waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ciidanka booliiska militariga oo runtii diyaargarow badani ka muuqdo taliyaashoodana waan ku ammaanayaa say heegan buuxa ugu galeen inay kaalintooda ka qaataan ilaalinta amniga arrimaha doorashada fariinta labaad waxaan bartan si sharaf iyo milge iyo maamuus leh uga codsanayaa shacbiga ku dhaqan gobolka Maroodijeex inay gobonimadii iyo garashadii iyo galladay lahaayeen ay ku maamuusaan martida inooga timid gobolada kale ee muwaadiniinta ah ee jamhuuriyadda Somaliland ee caasimadeeda ku soo wajahan ee ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka ee komishanka la shaqeynaya inama fara badan iyo hablo fara badan oo howlwadeenno ah gobolada Sanaag Sool Togdheer Awdal iyo gobolada dalkoo dhanba ka yimid ayaa nasiibka iyo chance ku siiyay halkan inuu ka shaqo galaan iyagoo komishanka ka shaqeynaya inamada komishanku wuxuu ku soo xushay aqoon aragti iyo maskax furni iyo muwaadinimo iyo fursad ay u heleen inay taxaan ay ku soo baxaan inamadaasi iyo hablahaasi waxay xaq inoogu leeyihiin maadaama culays badan caasimadda uu soo wajahayo maadaama laga yaabo in hoteeladu buuxsamaan maadaama dad xid iyo xigaal aynu nahay in qof kastaba marti sooriyeyntooda uu qayb lixaadle uu ka qaato oo nagu haleynin komishanka oo keliyaata in inamada iyo hablaha ay naga madna sheegtaan waxaan jeclahay muwaadiniintaasi waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan ay ka codeeyaan kolba goobta ay joogaan